wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Jowhar u furtay tababar lagu baranayo xirfado ay ku shaqeystaan isla markaana ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. haweenkani maanta tababarka loo furay ayaa baranayo qaabka loo tolo dharka noocyadiisa kala duwan iyo sida loo isticmaalo harqaanka. haddana waxaan u baahanahay dadkan oo walaalaha gabdhaha in aqoontaas aniga aan soo barto ayagan aan gaarsiiyo. alxamdulillah aad ayaan u faraxsanahay. marka qof waxaa jirta oo ayo waxba oo xooga culays ku noqonaa qofna ayo waa qabana wax walba maskaxay u baahan mar waxaan jecelahay inaad loogu dadaalo. aniga in badan muddo hal sano aan soo shaqeynay si fudud aan ugu bartay. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Saadiye Maxamed Nuur Saadiye Buris ayaa sheegtay in guud ahaan degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ay tababar noocan oo kala ah ay ka furi doonto. maadaama aan gabdhaha Hirshabelle ay ku jiraan gabdho yar yar oo shaqada maaragtay iskoolaadkii qaar ay gafeen haween aad u maaragtay u dayacan oo wax oo shaqo aan haynin in aan kor u qaadno xirfadooda waxbarasho si ay ugu shaqeystaan. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxay dadaal dheer u gashay in ay helaan gabdhaha xirfad horumarinta farsamada in ay maaragtay ay helaan oo la baro dabadeedna ay wixii ay barteen iyo agabkii lagu baray oo lamida in la siiyo. dugsigana mar walba ay ka soo baxayso 10 gabdhood dugsi degmada kale beledweyne kale balcado kale mahadaayo kale buuluburde jalaqsi degmo kasta waxaan wasaaradda haweenka ay diyaar u tahay ama ay dadaal ugu jirtaa inay ka furayso tababarka horumarinta haweenka harqaanka sida harqaanka dharka loogu tolo maadaama ay nolosha ay rabo inay ka maareystaan gabadhii dhar tolanaysa inay u keensato wixii dharka lagu tolayana ay maaragtay ayaga ay noloshooda ay ku maareystaan barashada harqaanka inay bartaan kadibna ay ku shaqeystaan. intaas ayaa noo suura gashay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha intaas degmooyin oo labada gobol ka kooban oo dhanna waxaan ballanqaad ka helnay in loo siiyo tababarkaas. tani waxay muhiim u tahay haweenka ka soo jeedo qoysaska danyarta ah waxayna ka heli karaan haddii ay ku shaqeystaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.